Real Madrid ayaa isku diyaarinaysa in lacag rikoor ay ku soo qaadato weeraryahanka reer Brazil ee kooxda Paris Saint-Germain Neymar. Wax ka badan 300 oo milyan ay Real Madrid ugu talagashay in Neymar ay dib ugu soo celiso Spain. Neymar ayaa noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan kubadda cagta xagaaga la soo dhaafay markii 200 oo milyan lacagta pound-ka ah oo ugu biiray kooxda kubadda cagta PSG kadib markii uu ka tagay Barcelona. 26 sano jirkaan ayaa hadda si aad loo doonaya Manchester United, Paris Saint-Germain iyo sidoo kale Real Madrid ayaa ku dagaalami doonaan. Madrid waxay doonaysaa in Neymar ay ku bedesho Cristiano Ronaldo kaas oo xilli ciyaareedkan aan warcad ka soo saarin mustaqbalkiisa. Neymar ayaa tartamada dhan 35 kulan u saftay kooxda Paris Saint-Germain kadib dhaawac ayaa soo gaaray. 27 gool ayuu dhaliyay wuxuuna PSG ka saaciday inay ku guuleysato horyaalka Faransiiska ee Ligue 1-ka. Barcelona ayaa ka xumaan doonta haddii Neymar uu dib ugu soo laabto Spain sidoo kalena uu ku biiro Real Madrid. Madrid waxay doonaysaa Neymar in sidoo kale ay ka dhigaan ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kooxda kubadda cagta Real Madrid, balse Neymar iyo abihiisa oo ah wakiilka ciyaaryahanka ayaa laga doonayaa in ay aqbalaan dalabkan. 2019 ayuu dhamaan doonaa Neymar heshiiska uu kula jiro kooxda PSG.